السلام عليكم سو dhawaada asxaabay taxaniin aan hore u shaacnay aan bilaabi doonaa taxanuhu waa ardu saafiliin waxa qoray Axmed Khaal Mustafa oo ah qoraagi qoray buugga Antikristos hordhac dhammaan dadka iyo sheekooyin ku xusan buuggan waa kuwa xaqiiq ah sidoo kale dhammaan xaqiiqooyinka cilmiga ah waa kuwa laga soo dhigtay cilmiga horumaray dhammaan dadka iyo sheekooyin ku xusan buuggan waa kuwa xaqiiq ah sidoo kale dhammaan xaqiiqooyinka cilmiga ah waa kuwa laga soo dhigtay cilmiga horumaray dhammaan wixii la xidhiidha diinta waxa laga soo baxay kitaabka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam chapterka koowaad isxoree wax kasta iska xoree intaanad aniga iman ruuxdaadu waa inaad ka siibtaa dhammaan dharka ay sidato naftan wixii culaysa waa inaad iska dhigtaa wararkaaga iyo mashaakilka ku haysta waxaad ku ridaa salada xashiishka anigu ruuxdaada kaliya ayaan rabaa ruux xor ah saafi habaan doonayaa wax kasta oo ku mashquuliyo meel iska dhig dhammaan silsiladaha maskaxdaada ku xidhay waa inaad jebisaa haddii aad igu caajista buugga isku laab oo dhaqso meesha uga bax adigay kula jirtaa inaad buugaa kala akhrisanayso iyo in kale anigu inaan ruuxdaada la hadlo ayaan doonayaa ruux xor ah saafi habaan doonayaa hadalkan aan sheegayo ma aha mid aan anigu kugula hadlayo adiguna aad dhegaysanayso balse waa mid nooc kale ah gacanta ayaan ku qabanayaa wax kastana indhahaaga aad ku arki doontaa waxaan ku geyn doonaa caalam kale oo saameyn kugu reebi doona buuggan markaad dhamaysato laba mid bay noqonaysaa inaad buuggan dabka ku rido adiga oo cadhaysan ama inaad caalamkan aad xaqiiqadiisa aragto xaqiiqo aad u xun markastana waxaad isku dayi doontaa inaad wax bedesho waxaad dareemi doontaa inaad xabsi ku jirto ma tahay inaan ku kaxeeyo waxaan ku geynayaa dhul saafiliintu reeroosaad ay ka taliyaan ayna degan yihiin dhul ku yaalla cagaaga hoostooda dhul aad markasta tegi kartid dhul wax kastaa bannaan yihiin xumaantu bannaan tahay mukhaadaraadka daroogadu bannaan tahay dilka tuugada iyo xayawaanka cunistiisu bannaan tahay afduubku bannaan yahay cunida hilibka bini'aadamku bannaan tahay iyo waxyaabo ka daran wax kasta waa ay bannaan yihiin caalamkani maaha mid khiyaali ah balse waa mid xaqiiqo jirta ah waxaan ku bari doonaa sidaad ku geli kartid iyo sidaad kaga soo bixi kartidba waa adigiyo damiirkaaga ama intaad ka mid noqoto saafiliinta ama inaad noqoto qof wax badan og aragti cusubna aad yeelato waxba yaana hadal kugu daalin indhahaaga ayaan ka arkaa inaad rabto inaad raacdo gacantaada ii dhiib ruuxdaada ku jirta jidhkaaga kaalay ruuxda akhrinaysa kelimadahan soo gal ama wiil ahow ama gabadh ahow nin ahow ama haween ahow soo gal furaha caalamku wuxuu ku jiraa jeebkaaga ama waxa uu saaran yahay miiskaaga balse ma ogid caalamka waxaa loo yaqaanaa deep web waa shabakada internetka hoose waa caalam aanad hore u arag internetka aad taqaan 5% deep webkuna waa 95% waxaad la yaaban tahay hadalkaan ku leeyahay balse sidaan hore kugu sheegay wax kasta indhahaaga ayaad ku arki doontaa tuug cabsanaya maanta mukhaadaraadka iibin maayo balse waxa lagu kala iibsadaa shabakada deep web internetka waxa uu leeyahay lacag khaas ah oo la yiraahdo bitcoin waxaa sidoo kale uu leeyahay browser u gaar ah sida internetka caadiga ahna ma adeegsado .com iyo .net balse waxa uu leeyahay domain u gaar ah maxaa isku xidhan ruuxdaada iyo shabakadan anigu ma doonayo inaan dambiilo ka dhigo maraba kaliya inaad aragto balse waxaan doonayaa inaad soo barato qaabka ay u nool yihiin dadka shabakada ku jira ruuxda markaa tahay waxa tahay sida maska oo kale cidna kuma qaban karto meel kastana oo tagi kartaa ruuxda markaa tahay waxaad la hadli kartaa dhirta xayawaanka iyo waxyaabo kale oo badan wax xuduudaha ku xidhaya ma jiraan ma aragta albaabka markaan anigu iyo adigu ka galno waxaan noqonaynaa ruux wax kastoo kaa qarsano waad arki doontaa gacantaada albaabka saar iskuna day inaad ila riixdo si uu furmo albaabkaasaa furmaya markii albaabkii furmay dhaqso ayaan u galnay hawada ayaan maraynaa sidii qof diyaarad ka soo dhacay oo kale waxaan arkaa buuro aad u dhaadheer dhankasta waxay naga xigta kayn waxaan sidoo kale arkaa magaalo aad u weyn oo dhinacba kan kale ka duwan yahay dhinac dagaal ayaa ka socda dhinac farxad iyo reereen ayaa ka socota dhinac waa mugdi oo shayaadiin baa degan dhinacna murugo ayuu ku jiraa waa magaalo la yaab leh ha ilaawin ruux inaynu nahay oo aynu duuli karno markaa ka cabsi inay wax ku soo gaadhaan dad baa qosliya halka kuwa kala ilmeynayaan oo ay ooyayaan dad ayaa islaynaya halka kuwa kala wada murmayaan kuwa ayaa diyaarada saaran halka kuwa kala laash saaran yihiin kuwa ayaa dad sujuudiya kuwa ayaa dad u ciyaaraya oo u jaasaya caruur baa indha murugo ka muuqatay nagu soo eegaya halka dumar ay gacmaha inoo taagayaan hawada ayaynu istaagnay waxaan kuu tilmaamay guri qaabka goobada u samaysan waxaan kuu sheegay in gurigaasi yahay wajahada bartilmaameedkeena koowaad daawada la soco qaybta labaad taxanaha insha Allah oo aad uga sii xiiso badan tan koowaad fadlan video hadaad ka heshay like saar hadaad nagu cusubtayna subscribe saar oo nagu soo biir waa noo farxad. Wassalaamu calaykum.